waxaa socda oo habeen iyo maalin laga shaqaynayaa sidii loo qaybin lahaa Soomaaliya loo qaybin lahaa ayada oo loo marayo duruufaha ay haysta nidaamka xukun waliba inaan si fiican u fahmin ee federaalka la yiraahdo ayada oo loo marayo waxa la gaaray inaan laba qarsanin nin laga yaabo Soomaaliyeed oo deegaan ka mid ah Soomaali xukumaay inuu annaga noogu hanjabo haddaydan saas samaynin waan goosanayaaba sacad haddaan saa la yeelin waan goosanayaa haddaan doorasho dadban leela aadin saan anugu rabo dalkan wuu kala tagayaa anna dib dambe la arki maayo waan goosanayaa dalkan waad garan kartaan termiska adduunka iyo wadamada iyo ummadaha siday dambi u tahay iyo intay la eg tahay inuu nin inta istaago cidnaba dooran xatal meesha uu iska jooga ama haddii la doortay dadka doortay aysan ahayn dad public vote kuma imaan xatal suuqi ilaahay baa og ruuxu rabo ha ahaado inuu iska yiraahdo Soomaaliya wana kala goynaya dalka isma haysanayo waan ka go'aynaa Soomaaliya si cad inuu yiraahdo dambigaas waa garan kartaan intuu leeyahay maanta banaankay taala waa la iska dhahayaa waxaadna moodaa qofkaas xataa inuusan aaminsan inuu dambi galayo marka halistaas ay haysata idinka ayaa marka jihada ama mu'assasada waajibkeeda koobaad u yahay in la ilaaliyo calankan iyo midnimada dhuleed midda cireed iyo midda badeed ee dalkan marka waajibka culus ayaa idin saaran halistaasina way jirtaa la socda diyaar garooba waxa way dalkeenna sidaan u difaacan lahayn qorshaheedii keena taladeedii keena aragtideedii keena xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay diyaar u tahay in sidii aan ku dhaarannay ilaahay hortiis aan ku dhaarannay inaan ilaalino tabarteenna dalkeenna midnimadiisa ummadda Soomaaliyeedna markhaati bay ka tahay habeen iyo maalin inaan u taagannahay midnimadaas sidii loo ilaalin lahaa dalka iyo bahallada badan iyo waraabayaasha badan ee soo weeraray maalinba mid yuraynayno oo waqtiga naga qaadayo oo hantida nooga dhamaanayso oo diblomaasiyadeena iyo culayska ugu badan ay ka soo fuulayso ummadda Soomaaliyeed way og yihiin Allahna waa og yahay subxaanahu wa xamsiyi xasan sheekh oo ku eedeynaya madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu isagu shalay lahaa 2021 xamza waxaan leeyahay hadduu Saciid Dani ku qaldan yahay wuxuu maanta idin yiri adigu soo kuma aadan qaldanayn wixii aad 2021 adigoo dhisaya Axmed Maxamed Islaam hawada u marsii jirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa xamza waa wasiir Axmed Macalin Fiqi waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhammaantood maanta noo sheegaya inay tahay dambi waxay iyagu shalay ku dhaqmayeen bal waxaan isdul taagi doonaa mucaaradka dambilayaal lagu tilmaamayo hadda ragga ku tilmaamaya sida ay ahaayeen 2019 2020 2021 annagana lama qaldi karo beenna looma sheegi karo xusuus ayaan leenahay mucaarad hadduu dambi leeyahay dambigu Xasan Sheekh uu ka soo bilaabanaya maamul goboleed hadduu dambi leeyahay Xamse Cabdi Barrow ka soo bilaabanaya haddii mucaarad dhexe uu dambi leeyahayna wasiir Axmed Macalin Fiqi ayuu ka soo bilaabanaya bal waxaan maanta isbarbar dhigaynaa madaxweyne Xasan Sheekh xamsihiisa wasiirkiisa Fiqi iyo Saciid Cabdullaahi Dani Axmed Maxamed Islaam Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo yaa dambilayaala bulshada Soomaaliyeed 2026 xusuus bay leeyihiin waxayna og yihiin wixii shalay dhacay warbaahinno xora oo runta sheega oo aadan ku shuba karina oo aadan bedeli karina mowqifkooda ayaa jira oo 24 saac u soo gudbinaya wax walba oo jira annaga ayaa taagan annaga ummadda u sheegayna shalay qaladkii ala heedeen maanta qaladka aad dadka ku sheegaysaan mucaaradnimo dambi ma aha
laakiin anigu waxaan diidanahay shalay xasan sheekh markuu lahaa madaxweyne farmaajo wuxuu la mid yahay ninuu naagu qabi jiro weli ilmo ka dhalaya ama zina ku jira mucaaradnimo heerkaasay xasan sheekh la gaartay ayaa lagu leeyahay waa uu ku saxnaa laakiin mucaaradka maanta shariif sheekh axmed saciid cabdulaahi dani maxamed cabdulaahi farmaajo waa qaldan yihiin qabyaaladdu mar horaan annagu iska saarna bannaankana dhignay qofkii qaldanna annagaa runta u sheegayna anigu ma baahni oo maanta codkaygu beec ma aha lacag inta la isiiyo mowqifkayga lama bedeli karo intaan noolahayna ummadda waxaan usoo bandhigayaa wax alla iyo wixii jira sidaa darteed runtu waa qaraar tahay waxaan barnaamijkayga maanta kugu soo gudbin doonaa qaladkii shalay qaladka maanta keebaa ummadda soomaaliyeed looga dhigi karaa wax xun haddii madaxda maanta ay shalay saxnaayeen madaxda mustaqbalka maanta waa ay saxan yihiin haddii jubbaland iyo puntland maanta qaldan yihiin jubbaland iyo puntlandtii hore ayaan idin xasuusinayaaye ayaguna miyay saxnaayeen base way qaldanaayeen warbaahinada barnaamijyadayda ka baxa mar kasta runtaad iigu imaanaysaa aaladahaad iga daawataan aniga xaqa ayaad mar kastaba iigu imaanaysaan wixii jira mustaqbalka waxyaabaa la ifi karo intaba waan idinla wadaagaa kusoo dhawaada mar kale youtube-ka haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro haddaadan ku cusbayn horay aad iila joogtay waad mahadsan tahay taariikhdu waa 13 bisha afraad sanadka 2026 waa barnaamijkii koowaad barnaamijyo badan ayaa jiri doona oo si isdaba joog usoo geli doona insha allah jadwalkayga maanta 13 bisha afraad marka waxaa idaawo kale oo keliya qofka youtube-kan subscribe saarta calaamadda kabalaalka furta haddaad adiga horay u samaysay mahadsanid haddaadan horay u samayn hadda youtube-ka subscribe saaro si aynan kuu sheegin barnaamijyada aan soo gudbiyo dhammaantiin soo dhawaada kusoo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan iyo anigoo cabdulaahi bilwaana waxaan daawaday ra'iisul wasaare xamza oo Saciid Dani ku weeraraya aragti uu puntland ku hogaaminayo waxaan arkay xamse cabdi barre oo axmed maxamed islaam ku weeraraya sharci iyo nidaam uu jubbaland ku hogaaminayo wuxuu annaga nooga dhigay rag qaldan dowladnimada dhaawac ku ah halis ku ah jiritaanka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne maamul goboleed inuu sidaa u hadlana wuxuu xamsaha xasan sheekh inoo sheegayaa inay tahay dembi aad iyo aad u qaldan annagu wuxuuna moodaa dhoohane annagu wuxuuna moodaa doqomo annagu noo haystaa inaan nahay dad aanba xusuus lahayn mararka qaarna wuxuu noo haystaa xamsaha xasan sheekh inaan nahay dad xusuus dhanba lahaynoo iska nool laakiin annagu waa soo jeednaa xusuusaan leenahay wixii shalaan xasuusanaa waxaad ku jirteen baan ognahay annagu dembi noogama dhigi kartaan waxaad kursiga shalay ku soo korteen shalay waxaad kursiga ku timideen annaga dembi noogama dhigi kartaan haddii mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe allaha xifdiye uu dembiile yahay xamse cabdi barrena waa dembiile maxaa saas u leeyahay ma aanan iloobin wixii uu xamse lahaa 2019 2020 waa kambaynerkii axmed maxamed islaam wuxuuna noo akhri jiray 3 sanoon idin sheegay dastuur iyo nidaam iyo sharci jubbaland ay leedahay axmed madoobena uu yahay nin sharcigaasi ku taagan jubbalandna ay xalaal tahay dastuurka jubbaland u yaalana uu yahay mid saxaya wax walba wuxuuna noo sheegi jiray dowladda dhexe ee muqdisho joogta in aynan dulmi karin dastuurka jiritaanka jubbaland iyo mudane axmed madoobe ilaah baan idinku dhaariyey xamse xasan sheekh hadduu annaga hadda doqomana moodo uu nooga sheekeynayo 2026 in axmed maxamed islaam shuruucda rasmiga ah ee dowladnimo ee soomaaliya ninka haysta weeye inuu dembiile yahay xamse waxaan leeyahay haddaad adigu doqon tahay lagugu shaqaysto annagu doqomo ma nihin jubbaland shalay saad noogu sheegtay ayay maanta noo tahay hadduu axmed madoobe dembiile yahay adiguna dembiilaa tahay hadduu axmed madoobe saxan yahay hadalkaaga maanta qalad waay Saciid Dani aad wax ka sheegtay adigu ahaa ninkii 2019 ka sheegay magaalada Kismaayo in jubbaland iyo puntland tuusinta dowladnimo ee dalka ay ku taagan yihiin kuna taagnaa doonaan
waxaad noo sheegtay inay ku saxan yihiin dastuurka ay haystaan labadaasi maamul adigu ahaa ninkii ammaanayay sanadihii 2019 maantana waxaa naga dhaadhicinaysaa adigoo xasan sheekh u adeegaya in labadaa nin ay yihiin laba nin oo dowladnimada lidku ah waxaad noo ammaantay madaxda maya waxaad noo weerartay madaxdii farmaajo la safnayd waagaas waxaad ku sheegtay kuwa la dulminayo oo dulmanayaala oo dembi laga gelayo oo aan deegaankooda matelin waxaadna ku sheegtay dadka ugu liita ee maanta ka jira siyaasad ahaan maamulada aad weerartana waxay kala ahaayeen galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed waagaasi farmaajo la safnaayeen waxay ahaayeen dad doqomo ah sidaad adigu noo sheegtay maantana waxaad nooga dhaadhicinaysaa kuwa maanta xasan sheekh la jira inay yihiin dad aqli badan kuwaad shalay adigu la safnaydna ay yihiin kuwa doqomo ah waa xamse cabdi barre lama kala wanaagsana oo madaxdu waa kuwa isku aqli ah annagana namooda inaynu ka hoosayno madaxweyne xasan sheekh mucaaradkii ugu weynaa ee farmaajo ka soo horjeedu ahaa wuxuu ka qayb galay caleemasaarkii axmed madoobe 2019 wuxuu kismaayo ka sheegay axmed maxamed islaam inuu yahay aabbihii qaranka badbaadada dowladnimo iyo ilaalinta dastuurka inuu axmed madoobe yahay hadda waa xasan sheekh hadda madaxweynaha nooca waagaasi waxaa safka kula jiray madaxweyne saciid cabdulaahi dani weligay ma iloobi doono waxaan xusuustaa madaxweynihii fadhiya ayaa wasiir ka tirsan dowladda Kenya sidoo kalena nin Soomaaliyeed ah aadan barre ducaale ayaa caleemasaarka 2019 wuxuu ka yiri farmaajo wuxuu la mid yahay islaan aan uunsan jirin oo uunsatay oo ka gubata meelaysan ka guba jirin af Soomaaliga dhexe markaan kugu sheego qof dumara unsiga waxa la yiraahdaa waxyaabaha ay dumarku isku carfiyaan inta badanna unsiga de meel fara badan oo lagu carfiyaa jira oo halis la keeni karta marka waxa uu yiri islaan aan unsan jirin oo unsata meel ay ka guba jirin bay ka gubataa waxa qoslay madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku faraxsanaa in sida loo caayo maxamed cabdullaahi farmaajo khudbadihiisii muqdishona waxaa ku jiray inuu xitaa ku tilmaami jiray nin sinaysta zino waxyaaba aad u khatar badan nin sinaysta oo dhaqankiisa siyaasadeed ay la mid tahay zino weeraradu intaa kaliya kuma ekayn ciidamada dowladda Soomaaliya siday tahay u caayi jiray wuxuu ku tilmaami jiray shacabkana ku bogaadin jiray in aan la isku handadi karin ciidan qaran madaxweynihii ciidan qaran idinku handadana inaad sharci u leedihiin aad la dagaalantaan wuxuu ahaa ninkii ku bogaadin jiray shacabka muqdisho askariga qaranka u shaqaynaya inay dhagax kala hortagaan oo ay la dagaalamaan ninkii shalay annaga nagula taliyey in aanu dowladda la dagaalanno ayaa maanta wuxuu nooga sheekaynayaa qiimaha iyo qarannimada iyo sharafta ay leedahay madaxweynihii geela ku qarayay muqdisho oo dadka Soomaaliyeed u sheegaya in 1991 dib loogu laabanayo oo noo muujinayay nacayb qabiil oo waliba nacayb beel mareexaan la yiraahdo si gaar ah annaga noo tusayay inay yihiin cadow oo farmaajo naga dhaadhicinaya inuu maxamed siyaad barre ay qaraabo yihiin sidaa darteedna uu yahay cadow hawiye ayaa maanta annaga dowladnimo nooga sheekaynaya wasiir axmed macalin fiqi shalay isagoo isla kala jiidayaan arkayay dowladnimada waa qasab maamul ogolaan dhihi kara xiriirkan u jarna ma jirto axmed macalin fiqi wuxuu ahaa ninkii ku tilmaamay ciidanka gorgor maleeshiyaad uu farmaajo leeyahay waa ciidanka uu maanta annaga noogu hanjabayo waagii farmaajo maleeshiyaad bay ahaayeen kelmad beena afkayga haddaan aad ka maqashaan dembiga anaa iskale raaditaan sameeyo anaa dembiga iskale madaxda aan wax ku tilmaamayo haddaan been ka sheego dembiga anaa iskale laakiin runta inta aan sheegayo cid aan kala gambaraya malaha gorgor waa maleeshiyaad farmaajay u shaqeeyaan maantana waa ciidan qaran waana lagugu hanjabayaa wallaahi tallaabay qaadayaan wallaahi waa idin weerarayaan midda kale soomaalida xusuusay leedahay fiqi wuxuu ahaa ninkii hormuudka u ahaa dibadbixii muqdisho ka dhacay oo loogu magac daray farmaajo waa mareexaan wallaahi waa baari kartaan farmaajo waa mareexaan farmaajo daaw ra'iisul wasaare Roble ha noolaado farmaajo ha dhaco ninkii muqdisho boor la taagnaa ay ku qoran tahay farmaajo waa mareexaan ayaa maanta wasiirkii difaaca noo ah bal nasiib darrada nagu dhacday
لا إله إلا الله صلى ورب الشري نكي أنا مظاهرات كاسي نوذي والله هذا كبر أبورا يوزير فقهي أنت الرئيت كان صورك وكيري كرتان وحمانك كستنة تسجري شنتي سنة فرماج أوجوي بوك أي كو قرنتها 1991 ما أنت وزير كيني الدفاع وعليه الدولة نمدها تيلك هوري ماذا إذا ما غير كويدا وين ريع أنت صدر محل ذكو شيء شرعي وحي جيدين قطبضها الجبالة هي كبر دولة نمو هنان قفك دولة نمو الديلة تلاوان كقاوينا قفك دولة نمو أنا أخبري أنا ومركا مدبان لنا تقوم مني شعب وحبرتانا إيمانا لنا كنتان شيغي له كنتان كتاغنا هدي ما أنت حمزة إيا حسن الشيخ إيا وزير فقهي أي أنا نو دولة ذي كران ما أنت اسمرنا وحي شري جري أي ما أنت كحسوسنا أنا وحوق قال معنا ظلمي أي شري وذين أنا قد دنبي قوان قاطها ولي أي دنبي الله هي كما بين أبورين أما ما أنا انكري أنا والشري مركي قلت ككو جرين وكنت تاغيري جري إلى هي عافية وزير فقهي كنت تاغيري جري مدحوين حسن الشيخ كنت تاغيري جري حمزة هذا أنا قلت له هنن مودا أيام كنت تاغيري جري واجو جوجي أما الله صفنا أحمد محمد إسلام وربنيك الشلي ظلمي أدودين إذا كنت تاغيري ما تبينوا شيء كرتا ما أنا تبيني شيء كرتا ما أنا إذا كقاضنية المحرارة النحي فرماجي الشريف إيو قير إيو دني أحمد مذوبن هو المحران كأكبرية هدي الدولة لماذا قلت لقى قلي حسن الشيخ الدنبيلاء نمبر 1 هدي الدولة لماذا قلت لقى قلي حمزة الدنبيلاء هدي الدولة لماذا قلت لقى قلي اللي يسكت باري ويصير أحمد معانا فقيه كبالعوانيسة وحاربنا مركز الصومالية إنه نسكت إنه إتكستو أنا بينه شيء وحاربنا إنه هنتو الشيء قبيالات وحبس سوكر لميس هدو أنا مدحوينها يحبوا دولة لماذا كوين هدي رئيس الوزراء وأديو المقادير كلية هي دولة لماذا كوين هدي فقي وأديو إن أدير كاية هي دولة لماذا كوين ما أنت مركا إن دولة لماذا إن لو غير كوح جارة إيه كبري جارة أو سي الله يسيدي الله إنت الله يلو أنا جنا لو قصبة يكون تاجرة قاعدا ماينو أكبر ماينو وربحين تيدنا كنتوا تاجرتين أنا جو فلان كيانا أنا جو حنا هاي افتيمي أنا جو حنا هاي دول استاج وحي حقا أنا جو حنا هاي قف أنا كجنبان وحيابها مقضى بنكيا مركا أنا جو مركز طبعا كنت أصلا كنت أجنان دونا شلي هداي قلدنايين ما أنت روا قلديهين ومدنا بينه مشي كريم أنا رجل وحي كسر كرنا إيش كوهي جدول كبرنامج جدا استبجوج جاء اليوتيوب كانت كداود إن شاء الله نبت قريب.